kulanti wanaagsan saaxiibal soo dhawaada waxaan rabaa inay la wadaago xogta ay wararkii ugu dambeeyay talaabada culus ee uu qaaday Axmed Madoobe iyo waliba sidoo kale odayaasha dhaqanka halkaasi oo soo gudbiyay liiska xildhibaanada cusub ee halkaasi wax dooran rabo ama markaasi waqtigan la joogay xildhibaan halkaasi ka ama baarlamaanka halkaasi noqon karayo xogta si rabaa in halka kugula wadaago hadii ay tahay markii ugu horeysay ee uu ku soo gaaray muuqaalka fadlan like garo share gare meel dheer nala gaarsi aragtaan qaybta hoose faallada commentiga ayaad inagu wadaagi kartaa way soo dhawaada saaxiibal magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland waxaa halkaasi ka socota qabanqaabada iyo waliba sidoo kale diyaar garowga weyn qabashada doorashada ee halkaasi iyadoona markaasi la soo gudbiyay liiska xildhibaanada ee markaasi dooran doono madaxweynaha halkaasi iyadoona markaasi mucaaradka halkaasi joogeen ay furka ay tuurteen hadda ay u muuqato in xaalad colaad mise sansaaneed dagaal ay halkaasi ka bilaaban karto Axmed Madoobe ayayna ku eedeynayaan inuu markaasi qabanayo doorasho iskiis isku caanashubayo taasi oo hadda waqtigan la joogay u muuqata in ay tahay markaasi tii ugu xumeyd abid ee halkaasi ka dhici karto iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba sidoo kale Axmed Madoobe khilaaf culus uu kala dhaxeeyo ayaa haddana waxaa muuqata waqtigan la joogay inuu markaasi talaabo culus kale uu u qaaday taasi oo hadda keentay waqtigan la joogay in dhammaan musharaxiintii u tartamaysay xilka musharaxnimo ee madaxweyne halkaasi si weyn ugu biidiidsan yihiin magacaabista iyo qorista liiska xildhibaanada halkaasi ee markaasi wax dooran doono iyadoona markaasi ay dhaqanka halkaasi ay soo gudbiyeen liiska halkaasi misana markaasi guddigii doorashooyinka loo wakiishay si weyn ay u soo qaadeen ama markaasi ay soo bandhigeen liiska iyo waliba sidoo kale magacyada xildhibaanada ee halkaasi laga soo xulay ama markaasi golaha wakiilada ee halkaasi wax ka dooranayo Axmed Madoobe ayaana si weyn markaasi loogu eedeynaya talaabadan inay tahay midii abid markaasi uu ku weyn lahaa xilkan hadda uu tartamayo iyadoona markaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in gebi ahaanba markaasi daaqada ay ka saartay misana markaasi si weyn ugu soo horjeedo doorashada ay markaasi loo madlan yahay isla bishan iyo 20keeda laga qabanayo magaalada Kismaayo iyadoona markaasi muranka siyaasadeed ee kala dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba sidoo kale maamulkaasi cirka isku sii shareerayo walow aysan jirin warar rasmi oo halkaasi ka soo baxaya laakiin waxa isla habeennimadii ama markaasi maqrinimadii maantadan la shaaciyay liiska xildhibaanada halkaasi sida weyn ugu tartami doono Axmed Madoobe ayaana u muuqda talaabadii ugu xumeyd inuu mar kale uu qaaday misana siyaasadiisa dhulka la gali lahayd inuu ku sii ambaqaadayo maadaama musharaxiinta la tartamaysay dhammaantoodba afka ay wada furteen iyagoona markaasi ku doodaya in Axmed Madoobe talaabada uu qaaday ay tahay mid aad loogu xumaado taasi oo ay ku eedeynayaan in haddii doorashadan la qabto ay u muuqato dadka hadda loo soo xulay dhammaantood ay yihiin kuwa markaasi uu isagu isku caanashubayo misana uu rabo inuu halkaasi uu ka qabto wixii warar kale ee ka soo kordha doorashadan iyo waliba sidoo kale macluumaadkeeda kale halkan ayadu kugula wadaagi doonaa maalmaha soo aadan doorashada iyo waliba sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee hadda ka soo baxaya haddii muuqaalka markii ugu horeeyay uu ku soo gaaro uu yahay fadlan like gare oo share gare meel dheerna nala gaarsi aragtidiina qaybta hoose faallada commentiga aad inagu wadaagi kartaan bogana haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad aragto misna uu ku soo gaaro fadlan ka mid noqo saaxiibada sida maalinle halkan ugula socdo wararkeena waa mid ku mahadsan tahay daawashadaada ilaa dhamaadka